بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaaw iska kitchen. maanta waxaan idin wadaa video yaroo fudud. waxaan rajeynayaa inaad ka wada heshaan. haddii aad channelka cusub tahay please ha iga hilmaamin inaad subscribe ii saartid. maanta videogeena waxaa idin tusi doonaa qaabka ugu fudud aad u sameysan kartid chicken biryani. waa bariis yaro aad u mac oo aad u fudud. waxaan rajeynayaa inaad ka wada heshaan. daawasho wanaagsan. maanta videogeena waxaan u qeybin doonaa 3 qaybood. qaybta koowaad waxaa u baahan tahay dooro ama digaag. lugaha doorada ama digaaga u baahan tahay marka koowaad. waxaa kale u baahan tahay rubac koob kabsar fresh ah, qaando yar oo kumin ama xawaaji dhudhuub, 1 qaando kari ah, 1 qaando sanjabiil ah, 1 qaando tuun shiidan, 1 qaando huruud shiidan ah iyo 1 qaando yar oo maraq digaag ah. rubac koob oo saliida oliviyada la dhaho. intaas si fiican iskugu qas. xawaajiyaasha iyo saliida iyo doorada si fiican isku galaano. intaasi meel dhig ilaa 2 saacadood ugu yaraan. hal habeenna waa dhigi kartaa. hadda bariiskii aan dhaqi doonaa. 2 koob oo bariis u baahan tahay. bariiska basmati isticmaalayo inta. lix koob oo biyo ah aan ku qasaya insha Allah. adiga biyo waxa u baahan tahay ilaa ay ka kormari karo. la dhig biyaha muddo 1 saac ah. dooradii waa soo 2 saac kadib waan soo baxsanay. waa diyaar. waxaan isku dayaynaa inaan ka bixino suugadii aan u sameynay. waxaan soo qabsanaynaa ovenka geedkan ku gelin lahayn formka. ovenka gashanayna insha Allah digaaga. waxaan duubaynaa forno aan ku duubaynaa muddo 30 daqiiqo ah. hadda waxaan karsanaynaa suugadeena. waxaa u baahan tahay 1 qaando olive oil ah. suugadii ka soo hartay digaagan ku qasnay. waa xawaajiyaasha iyo saliidii iyo kabsarshi. meeshaan waxaan soo jartay 1 xabo yaanyo aan soo fiiqay. waa yaanyo qob la'aan ah. waa isku shiila insha Allah. waxaan ku darsadaa 2 koob oo baradho oo jarjaran ah. intaas oo isku shiila si fiican. waxaa u baahan tahay nus koob caano fadhi ama yogurt ah. sirta biryaniga maciisu waa yogurtka ama caano fadhiga. intaas isku walaaqayna si fiican. dab yar oo dhexdhexaad isticmaal si kaaga dhigin hoos suugadaada.
hal qaando maraq digaaga u baahan tahay. maraq digaag hadaa jeclaan cusbada ku bedela kartaa, waa adiga iyo ikhtiyaarkaada. intaas dabool. waxaan digsi kalaan keensaday 8 bakeeriyo biyaan ku daray, 2 qaando cusbo, waxaan keensaday 5 xabo dhageero ah, heel oo 5 xabo asagana, caleentaneti aan ku darsaday iyo nus koob oo sabiib ah. sabiibka hadaa rabin waa ka dhaafi kartaa. bariiskan soo dhaqanay aan keenay, bariiskan gooni u karinaa insha Allah. bariis cad aan ka rabnaa, 6 daqiiqo aan karinaa muddo ah. digaagii waa noo soo baxay, waa kan ahaa half bisel waaye. basal aan soo shiishay ayaan ku darsanaa digaaga korkiisa. bariiskii aan biyaha ka soo miiray 6 daqiiqo kadib, waa kan ahaa asagana wax yar u dhiman, bisel oo dhag maahan, half bisel camal aan dhihi karnaa. suugadii noo soo kartay, baradhadii iyo yaanyadii iyo yogurtkii, basashii oo shiilneed, waxaan ku celinaynaa bariiskii, si fiican geesaha. waxaan ku daboolaynaa aluminium si fiican si oo hawada ay uga bixin. marka ovenka gelinin insha Allah. waxaan gelinaa ovenka muddo 30 daqiiqo ah si ay ugu bislaadaan dhamaantood. waa kan ahaa bariiskeena noo soo baxay, masha Allah tabarakallah. waa diyaar, waa bariis furfur ah, kaala iska arag waa, masha Allah furfur u soo baxay, mana kaa jabin bariiskaadii, wuuna bisil yahay, masha Allah tabarakallah. waa diyaar bariiskeeni. masha Allah kalar oo yeesho bariiska, dhinac wuu ka cad yahay, dhinacna gaduud waaye, kaala iska arag waaye. haddii aad baratid tan waa bariiska biryaniga sida loo sameynayo, waa qaabka ugu fududaa bariis biryaniga. waxaa ku cuni kartaa ansalaato iyo caano fadhigan iyo qajaar isku shiido waaye. waa khudaar yar ayadana lagu cuni karo biryaniga. ansalaatadiisa wuu wataa, ma u baahnid. masha Allah tabarakallah. waxaan rajeynayaa inaad video ka heshaan. haddii aad ka hesho please likes and comments hoos igu soo qor, asxaabtaa la wadaag. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.